aad iyo aad farxad weyn noogu ah maanta inaan wajigii koowaad ee wadooyinkii magaalada Kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta u ahaa xariga ka jaro waan u mahad celinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo doonariska iyo deeq-bixiyayaasha iyo World Bank iyo kambaniga dhisay intaba aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay quality-ga ay leedahay waxay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah inay wada tahay buuxsan shuruudihii wadooyinkaasi ana rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono haddii ayna jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heer degmo oo meelaha wadadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda iyo juhdiga ay bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen qof waliba uu hataa iyagoo wax loo celin lahaa qaarkood ay soo istaageen maya soo wada ma maraysaa intaa la iga duliyo diyaar baan wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimeyn bay leedahay tixgelin bay leedahay waxa hadda noo dhiman Kismaayo caqabada ugu weyn ee haysatay waa biyo fadhiisi sababtoo meelihii biyuhu mari lahaayeen oo dhan waa la degay muddadii burburka ahayd dawlad la'aanta ahayd waxay sababtay in dhulkii drainage-ka laga sameyn lahaa dhulkii biyuhu mari jireen magaalada naqshadeedii wax badan laga bedelo oo waxaad arkaysaa xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshada qashinkeeda oo kale hilibka hoosku u mari jiray intii la googooyo la jabiyo dhul laga wada dego la wada cabirto taasaa markaa waxay tahay wax caqabada iyo maxnada ugu badan abuuraya waa iyada waxa sababta keenaya maanta waxaa laga hadlayay phase 2ga waxaa loo baahan yahay bal inta drainage-ka qaab loo sameynayo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baawurha lagaga jiido ama ha loo sameeyo taa waxaan rabnaa iyadana qolada hawlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud wixii ay gashay dan guud baa gashay dadku inay wadadan helaan wixii loo mari karo dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu ururiyo si markaa ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo tiidi karo waa inay shacabku ku talagalaan oo ay si voluntary ah barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dawladda iskale mar walba waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sidaa daraaddeed mar haddii dhulka ay dawladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxa loo baahan yahay sidii xal looga gaari lahaa taasaa asala markaa dadka reer Kismaayo waxaan ku boorinayaa hal wadaan lahayn maanta haddaan intaasoo waddo oo kala yeelannay maxaa inoo dhiman intaasoo kaloo wadaan yeelannay waddooyinka inugu badan xaafadahoo dhan baa la wada mari doonaa magaalada wada laami bay noqon doontaa intaasoo dhanna wanaag iyo waxtar bay noqonaysaa aan ku talagalno aad baan ugu hambalyaynayaa maamulka degmada injineerka wasaaradda iyo kambaniga iyo shaqaalahaba shaqadan wanaaggeeda